xaafadda Niimoon oo kamid ah xaafadaha degmada Wanleweyn ayaa go'doon gashay kadib markii ay wadooyinkii xireen biyihii roobabkii da'ay. xaafadan ayaa waxay ku taashay cirifka bari ee magaalada iyadoo ay kamid tahay xaafadaha aan xaafad kale ka dambeyn. sidoo kale xaafadan ayaa waxay kamid ahayd xaafadihii ugu dhawaa suuqa iyadoo dadka xaafadda suuqa ku qaadan jirtay masaafo dhan 7 ilaa 10 daqiiqo laakiin se hadda ay ku qaadato muddo saacada. dadka xaafadan ku nool ayaa ku dhib qaba wadooyinkan iyagoo qaar kamid ah aan la xiriirnay ayaa waxa ay ka gaabsadeen gabi ahaanba inay ka hadlaan iyagoo ay sheegeen inay direen cabasho fara badan isla markaasina aanay waxba u soo jawaabin. sidoo kale waxa ay sheegeen in ay sameeyeen dadaalo aad u fara badan kuwaas oo ay ku doonayaan inay ku dhisaan wadooyinka halbowlaha u ah xaafadda laakiin arintaasi ay noqotay mid aan suurtagal ahayn kadib markii ay ogaadeen inay halkani ama wadooyinkani ay u baahan yihiin dhaqaale fara badan isla markaana iyaguna aanay haysan dad markaasi ama maamul garab ku siiya. maalinkii Jimcaha ee kadib markii shacabweynaha degmada Wanleweyn ay ka codsadeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed sidii loo dhisi lahaa wadooyinka halbowlaha u ah degmada. baaqaasi markuu baxay kadib ayaa gudoomiyaha degmada Wanleweyn waxa uu isagu yeeray ganacsatada isagoo ugu baaqay in la soo yimaado shir degdeg ah. shirkaasi ayaa wixii ka soo baxay ilaa iyo hadda aanan la shaacin walow ay jiraan hadallo ama warbixin aad u fara badan degmada la isla dhex marayo. Cabdiqani Maxamed Xasan TV Koonfur Galbeed Wanleweyn.